wasiiru dowlaha madaxtooyada qaranka Soomaaliya mudane Abshir Maxamed Axmed Abshir Buqaari oo booqasho gaar ahaaneed ku yimid wadankan boqortooyada Ingiriiska ayaa si diiran loogu soo dhoweeyay garoonka caalamiga ee Heathrow International Airport ee magaalada London. waxaana garoonka diyaaradaha ee Heathrow ee magaalada London ku soo dhoweeyay aqoon-yahano haween waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London. wasiiru dowlaha madaxtooyada qaranka Soomaaliya mudane Abshir Maxamed Axmed Abshir Buqaari ayaa la filayaa inay booqashadiisa qaadan doonto dhowr maalmood kaasoo uu safar ku kala bixin doono qaar ka mid ah magaalooyinka wadanka Ingiriiska kadibna uu la hadli doono jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London. qaar ka mid ah dadkii soo dhoweynta ka soo qayb galay ee ku sugnaa garoonka Heathrow ee magaalada London ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa: waxaanu soo dhoweynaynaa wasiirkeena ayaan soo dhoweynaynaa, waxaan joognaa anagu London, waa jaaliyadda London. waxaan leenahay Abshir soo dhowow, saacadda wasiir soo dhowow baan ku leenahay. anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda reer London, waxaan soo dhoweynaynaa wasiir ka tirsan dowladda federaalka ah, waa wasiir Abshir oo caawa nala jooga. waxaan leenahay gurigaagii labaad weeye, ku soo dhowow jaaliyaddaadii London, ku soo dhowow mudane wasiir. caawa waxaa farxad noo ah in aan soo dhoweyno wasiiru dowlaha madaxtooyada wasiir Abshir Buqaari oo aan leenahay welcome to London, gacmo furan qalbi furan, soo dhowow wasiir. haddee waxaad la kulmi doontaa bulshadii reer Ingiriiska. aadaan ugu faraxsannahay in aan caaw kula kulanno oon ku soo dhoweyno, waana mahadsantihiin. raxmaan raxiim, aad baa idin salaamaya kulli dadka ka soo qayb galay soo dhoweynta wasiirka. halkan waxaan ku soo dhoweynaynaa wasiirka madaxtooyada Abshir Buqaari. wasiir soo dhowow, wadankaagii labaada timid halkan Soomaali waxba ma dhaanta, Soomaali aad u wada joogto. welcome ku soo dhowow gacmo furan. aad iyo aad u mahadsantihiin dadka ka soo qayb galay. welcome to London jaal wasiir. wasiiru dowlaha madaxtooyada qaranka Soomaaliya mudane Abshir Maxamed Axmed Abshir Buqaari ayaa uga mahad celiyay soo dhoweynta diiran ee loo sameeyay, isagoo sheegay inuu waqti la qaadan doono jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: bismillaahir rahmaanir rahiim, alxamdulillahi rabbil caalamiin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmaciin. jaaliyadda runtii aadaan kugu mahad celinayaa soo dhoweynta waqtiga dheer oo halkan joogteen. aniga uma soconin booqasho rasmi ah, waxaan ku socda booqasho gaar ah, howlo aniga ii gaaraan u socday. magaalada Bristol aan u gudbi doonaa, waa inii soo noqonaya London, waa ku soo noqonaya maalmahan joogi doona haddii eebba idmo. markaasaan waqti fiican wada qaadan doonaa. dhammaantiin waa inii mahad celinayaa inta caawa halkan joogta, wiilal iyo gabdho iyo jaaliyadda qaybaheeda kala gedisan. waa ku mahadsantihiin. aad iyo aadaan ugu faraxsanahay runtii inaan maaragtay intaan oo Soomaaliya inaan markaan halkan kula kulmo. marka sharafa ii tahay inaan mar kalena in ku soo noqdo insha Allah. waa mahadsantihiin. Cabdi Fitaax Ali Shirwac, warbaahinta caalamiga Home Cable, garoonka Heathrow ee magaalada London.